بسم الله السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa sidee Microsoft Excel loogu buuxbuuxin karaa exam ama imtixaan. Imtixaankana marka wuxuu ka koobnaanayaa natiijooyinka ardayda oo totalkooda la isu geeyey, kadib celceliska ama average-kooda oo la soo saarayo. kadib arday walba waxaa la isticmaalayaa laba qaacido oo la yiraahdo maximum iyo minimum oo lagu soo kala saarayo dhammaan maadooyinka imtixaankooda uu galay ardaygu, maadada ugu liidatay ama ugu natiijada yareyd iyo maadada ugu natiijada fiicneyd. sidoo kale waxaan soo saaranaa ardayga dhaca iyo ardayga baasa, qaacido sheegaysa ardaygaasi inuu dhacay iyo inuu baasay. ugu dambeynna waxaynu ka shaqayn doonaa grade inaynu siino ardayda sida A, B, C iyo wixii la mid ah. maadooyinka iminka aynu haysan halkan waa maadooyin ilaa iyo 5 gaaraya. 5 arday baana dhigtay. shaqada ugu horeysa waxaan ka qaban doonaa marka inaan soo saaro totalka markaan soo saarino waxaan isticmaalnaa sum. laba qaab waan u samayn karnaa. automatic tab marka hore waxa weeyaan inaan tagno menuska sare, halka tabka la yiraahdo formula markaan tagno halkan waxa inoo yaala auto sum. tan auto sum ka sum ku dhufto waxaad arkaysaa iminka inay xaraysay dhammaan maadooyinka ardayga natiijooyinkiisii. inter kaliya ayaad oranaysaa sida waxaad ku helaysaa natiijooyinkii maadooyinka. marka haddaan hoos ugu jiidana ardayda kale oo dhan waxaa la isu geyn doonaa maadooyinkooda. qaabka kale waxa weeyaan in godka totalka aad rabtid inuu kusoo qormo adoo jooga aad taabatid equal, kadib aad qortid sum ama sum. qoys ayaad furaysaa adoo qabanaya shift iyo 9. maadooyinka natiijooyinka uu keenay ardayga ugu horeeya ayaan sida u soo jiidayaa dhammaantood. qoyskan xidhayaa shift iyo 0, kadib enter. iminka waxaad aragtaan in ardayga ugu horeeyay la isu keengeeyey totalka maadooyinkiisa. haddaan taabto totalka ugu horeeya hadda inoo soo baxay waxaynu ku jiidan doonaa ardayda kale si aynu qaab automatic ah u helno. waayo tan waxay noo badbaadinaysaa inaynu arday walba si gaar ah aynu sum ugu qorno. qaacidadaas halka god ah ayaynu dhammaantood wada siinay. totalka isaga waa garanay, laba qaab ayaan u samaynay. ardayga raba inuu ku celceliyo isagu wuxuu samayn karaa inuu muuqaalka ku soo ceshto inta uu ka fahmayo. qaacidada labaad waa inaynu imtixaanka aynu helno arday walba maadooyinkiisa marka la isu geeyo natiijadooda average-kooda ama celceliska. celceliska waxaan ku soo saarayaa equal ayaan qorayaa, kadib waxaan leeyahay average ayaan qorayaa oo caadiya, kadib qoys ayaan furayaa. qoyska markaan furo waxaan soo hareynayaa natiijada maadooyinkiisa marka laga reebo totalka. dhammaan saasaan ay ku soo jiidayaa. hadda waad arkaysaan totalkii ma taaban. qoyskan xidhayaa ugu dambeyn waxaan leeyahay enter. marka ardayga ugu horeeya celceliskiisu wuxuu noqday 69.8. haddaan kusoo jiidno tabtii oo kale halka inagoo joogna anoo click tahaya haddaan hoos ugu jiido ardayda kale, arday walba marka waxaa inoo soo baxaya celceliskiisa ayaa inoo soo baxaya. way average marka isna qaabka ayaa loo sameeyaa. waad ku ceshan kartaa si aad u samaysid. kaliya waxaynu sameynay ardayga waxaynu sameynay aan tirtiro kuwan. haddii kale muuqaalka haysid waa ku celceshan kartaa. marka hore average waxaan nidhi equal baynu qornay, kadib waxaan nidhi average. qoys ayaynu furnay average, kadib natiijooyinka ayaynu soo hareynayna oo laga reebay totalka. qoyska xidh enter leh, kadib markaa ku jiido saasaa oran kartaa kuwa kale. way average-kiina waynu haysanaa. waxaynu hadda rabnaa inaynu soo saarno wax la yiraahdo maximum. maximum waxa weeye ardayga marka la eego maadooyinka uu galay imtixaanka maadadeebuu ugu sarreeyay oo ugu natiijo fiicnaa. waxaad qoraysaa equal, kadib waxaad leedahay max ama max, kadib qoys baad furaysaa si aad u heshid maadada ugu sarreysa. inaad maadooyinka oo dhan soo harayso. kadib waxaan leeyahay maadooyinka oo dhan saa ayuu soo haray, totalka kuma jiro. kadib qoyska xidh enter dheh. hadda wuxuu inoo saaray 100. taa macnaheedu waxa weeyaan ardaygan maadooyinkiisa markaan sidaa u eegno maadada ugu sarreysa wuxuu keenay 100. waad arkaysaan oo tan maadada ingiriishka ayaa ugu sarreysay. sidaa fudud ayaa waxaan ku helnay marka inagoo max isticmaalayna natiijada ugu sarreysa ama maadada ugu dhibcaha badan. mid walba markaad samaysid kale ayaad ka siin doontaa kuwa kale. saasaad ugu jiidaysaa dhammaantood. marka waxaad helaysaa arday walba maadooyinka uu galay ugu sarreysa. hadda ardayga ugu hooseeya waxaa la yidhi maadooyinkiisa imtixaanka maado 70 uu keenay ayaa ugu sarreysa. haddaynu eegno aan sidaan usoo hareeyo waa tan oo wuxuu keenay 30, 40, 50, 60. taa 70 kaabaa ugu sarreysa. waa hagaag.
iminka maximumkana waynu fahnay waa natiijooyinka maadooyinka ardayga uu galay imtixaankooda maadada ugu sarreysa ayay soo saartaa minimumkuna waa taa lidigeeda oo maadooyinka ardaygu imtixaankooda galay ayaa waxaa lagu soo saarayaa maadada ugu dhibcaha yar equal min ayaad dhahaysaa meeshaad max odhan jirtay min oo minimum loo soo gaabiyey kadib qoys fur sidiisi la mid ah waxaan soo hareynayaa natiijooyinka maadooyinka oo galay imtixaanka totalka waxay isku jiraan qoyska xidh kadib waxaan leenahay inter marka hadda ardaygan waxaa la yidhi maadooyinkiisa waxaa ugu yar maadoo keenay 30 haddaynu halkan eegno waxaad arkaysaan in maadada la yidhaahdo physics u keenay 30 u keenay iyadana marka waxaa la yidhaahdaa minimum baa la yidhahdaa iyadana qaabkaas ayay u shaqaysaa kuwa kalenu marka ku jiidaynaa marka qof walbana waxay hadhow ka soo baxaya maadooyinkiisa ta ugu yar ama uu ugu scoorka yaryahay saa u jiido waxay noo hadhay iminka inaynu helo qof walba in la yidhaahdo hebel u dhacay ama u baasay marka waxaynu ku besgaranaynaa in celceliskooda haddaynu eegno hadda qof dhacayba ma jiro averageka qofka ugu hooseeya 50 ayuu haystaa marka ardayda si aynu helno dad dhacay waa inaan qaarkood natiijadooda aynu yaryarayno ardaygan oo kale hadda ardayga averagekiisii waxaan ka dhigay 19 baan ka dhigay marka ardayga waa inuu dhaco laakiin afarta ka sareysa waa in la yidhaahdo way baastay qaacidada marka waxaan sameynaynaa xaggan aan yaro ballaarsado selkan qaacidada see way noqonaysaa okay qaacidadan waxay noqonaysaa waxaan leenahay equal okay kadib waxaan leenahay if oo ah haddii qoys baad furaysaa qoyska markaad furto waxaad soo taabanaysaa celceliskan ayaa soo taabanaysaa marka waxaan leenahay haddii celcelisku ka weyn baad qoraysaa adoo qabanaya shift iyo full stop uu ka weynaado 50 waliba hadda haddaynu u dayno uu ka weynaado ogow ardaygii 50 keena xitaa hadhow waxaa la dhahayaa u dhacay marka si aad uga taxadirto waxaan israacinaynaa haddii celcelisku uu ka weynaado ama la mid noqdo ama la ekaado 50 that means qofkii xitaa boqolkiiba 50 uu celceliskiisu noqdo u baasaya kaliya waxaa dhacaya qofkii 50 ka hooseeya laakiin haddaad u dayso intaa dhahdi 50 xitaa kii boqolkiiba 50 keena baa dhacaya oo qofkii 50 ka sarreeya bas baa baasaya marka waxaan leenahay qaacidada ku socoliyo equal if qoys baan furay celceliskaa soo taabanaysa marka waxaan leenahay haddii celcelisku uu ka weynaado ama ka bato ama la mid noqdo 50 hakad baan leeyahay double code qofkaas waxaan dhahaynaa baasay double code-kaa kusoo xidhaysaa marka haddii qofkaas celceliska marka la sugeeyo uu 50 keeno natiijadiisa ama uu ka bataba qofkaas waa baasay hakad baan leeyahay qofka kale maxay nooga qorshaa qof kalena waxaan leenahay double code dhacay baan leenahay double code-ka soo xidh qoyskana xidho marka hadda haddii aad u baahan tahay si aad hadhow aysan kuuga adkaan screenshot waa ka qaadan kartaa shaashada waa haddii celcelisku la mid noqdo ama uu ka bato 50 qofkaas u baasay haddii kalena uu dhacay marka qaybtaa dambe intan dambe iyadu waxay saameynaysaa waa qofka 50 uu celceliskiisu ka yaraado waxaasuu soo saaraya okay intaa markaynu qorno aynu qoyska xidhno inter baa leenahay hadda qofka ugu horeeya waa aragtaan uu baasay sababta waxayaan celceliskiisu waa 69 innaga wax celceliskiisu ka hooseeya 50 waxaa jira ardayga ugu hooseeya saa darteed markaan kusoo jeedo waxaa laynooga doonayaa ardayga ugu hooseeya mooyaane inta kale oo dhan in la yidhaahdo waa baasay ama u baasay markaan kusoo jeedo ardayda kale oo dhan iminka waa kan sidaan doonayno ardayga keliya ayaa wuxuu noqday ardayga imtixaankan ka dhacayo inta kale dhammaantood way baaseen ardaygaas keliya ayaa wuxuu noqday qofka dhacay aan soo yareeyo kan waxaan rabnaa inaan soo saarno grade-ka okay waxaynu ka bilaabaynaa marka equal if baan leenahay qoys baan furayaa celceliskaan soo taabanaya haddii average-ku uu ka bato ama la mid noqdo 90 waxaan rabnaa qofkii celceliskiisu 90 gaadho ama uu kaba bato in uu keeno a waxaan leeyahay hakad double code a double code-ka soo xidh marka intan waxa weeyaan a ayaa keenaya qofkii 90 gaadha ama ka bata okay hakad baan leenahay qofka kale maxaynu ku sameynaynaa waxaan leenahay haddana if qoys fur celceliska soo taabo uu ka weynaado ama la mid noqdo 80 okay qofkaasi uu ka mid noqdo dadka 80 ka keenay ama dhaafay hakad double code baan leeyahay b isna double code baan ku xidhayaa marka qofkii 90 keena iyo wixii ka badan a baa la soo siinayaa grade-ka qofkii 80 iyo wixii ka badan keenan waxaa la siinayaa b
hakad baan leenahay waxaan rabnaa inaynu qaacidadana badino oo ilaa c laynaga helo kadib waxaan leenahay haddana if qoys baan haddana furayaa okay qoys markaan furo waxaan sameynayaa haddana waxaan qorayaa qaacidada waxaan soo taabanayaa meesha ku qoran tahay inaad la socotaan oo rajinaya average kan soo taabanaya haddii marka average uu ka bato ama uu la mid noqdo okay ka weyniyo equal baan qoray 70 hakad double quote waxaan leeyahay waa c tan double quote baad qoraysaa common line hadda waxay noo diyaarsan waa saddex shay waa a iyo b iyo c d-da maxaanu leenahay if qoys fur soo taabo qaacidada meesha ay kaga qoran tahay celcelisku kadib waxaan leenahay if celceliskaasi uu ka bato ama la mid noqdo 60 comma baan leeyahay hakad qofkaasina wuxuu keenay d double quote ka soo celi comma dheh kaliya waxay noo dhiman qofka conton gaara ama ka mid noqda inuu e siinayno waxaan leenahay if qoys ii fur waxaan soo taabanayaa celceliska haddii qofkaasi uu ka sareeyo ama uu natiijadii celceliskiisu noqoto conton comma aan leeyahay waxaan siinaynaa e double quote kaad xidhaysaa marka waayo qofkii conton ka hooseeya maxay nooga qorshaysan inuu qofkaasi fail la siiyo gradekiisa a iyo b iyo c iyo d iyo e ton aan la siin la yidhahdo qofkaasi totally waa fail marka maadaama wixii kale oo dhan dhamaynay aanu conton soo gaarnay waxaan leeyahay hakad double quote kale ayaan furaynaa fail ayaan siinaynaa marka failshaasi kaliya waxay saameynaysaa qofka gradekiisu conton ka hooseeyo okay aynu eegno marka inta qaacida aynu isticmaalnay inta qoysan soo furnay halkaa qoys baa nooga furan waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waxaa lanooga baahan yahay 5 qoys inaynu xidhno inagoo shift iyo 0 taabanan markaa 1 2 3 hadda halkan ayaa maraya marba kaad xidhid isaga ku calaamadinaya 2 kale ay dhiman 4 iyo 5 shanta qoys haddii aan xidho enter baan siinaya marka adiga waxaa lagaa rabaa qaacidada oo dhammaystiran waa tane inaad screenshot ka qaadato enter baan leeyahay enter haddaan siiyey ardaygan marka waxaanu ka dhignay d buu helay okay d sababtuu ka helayna aan eegno waxaan nidhi haddii qofku uu ka sareeyo nidhi 60 dc okay marka qofkaasi 60 buu ka sareeyay 60 iyo wuxuu keenay 9 buu keenay saddeed d buu ku qaatay okay 9 qofka keena ama ka sareeya isna waxaan nidhi wuxuu qaadanayaa wax la yiraahdo a buu qaadanaya marka okay d-da marka uu noo shaqeeyay waa qofkan haddaynu kor u soo kicino uu ka badanaya d okay aan ku jiidno marka si aan u aragno bal ardayda kale waxaan siinay okay ardayda kale marka waxay kala heleen 2a ya b d iyo qofkaas oo dhacay sababta kan u dhacay waxa weeyaan gradekiisa averagekiisa haddaad eegtid xitaa conton ka hooseeya marka qofkiina conton ka hooseeyaaba inaga waa inoo dhicin labadan kale ee 9 ka dhaafayna a bay heleen ka 80 ka dhaafay 86.8 keenayna wuxuu helay b kan 60 buu keenay saasaan d u siinay marka inaga d-da haddaynu xitaa badino physics-ka iyo maadooyinka kale haddaynu kordhino ka haddaan 100 siiyo aan enter dhaho wuxuu usoo dalacay b buu usoo dalacay okay tan laakiin bal wax macquula ka jaro 20 oo kale aan enter dhaho muxuu keenay c okay marka halkaa waxaa ka arkaysaa natiijadan in qaacidadan meesha ku qorani ay tahay qaacido lagu saleeyay celceliska marka ku talagal haddaad grade soo saarayso average-kaaga waa inaad haysatid oo average-kaas ayaa laga salayn doonaa waxa la yiraahdo grade-ka warjeenaya inaad casharka fahanteen waa macallin Ibraahim Cusmaan Cabdinuur channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanaya inaad subscribe saarto ardaygaad is leedahay u baahan yahay casharkan uu anfacayana aad la share garayso wixii faallo ah aad qaybta hoose commentiga noogu reebto ama casharada aad is leedahay macallinku ha soo diyaariyo waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته